mudanayaal iyo marwooyin mar kale aan si official ah barnaamijka u furanaynaa inihii hore dhan waxay ahaayeen hordhacyo iyo dhamaantiin waxaan marka hore si kaliya laabo ugu wada mahad celinaynaa xarunta Somali Dialogue Center ama xarunta wada hadalka Soomaalidu ay ugu mahad celinaysaa dadka Soomaaliyeed oo waliba dad waxa jiray saddexdii saac waqtigii lagu qoray warqadaha caasimadaha yimid saacado badan fadhiyay dulqaadkiina waan idinka mahad celinaynaa saacadaha badan ee saburka iyo dulqaadka muujiseen si aad waqtigii ugu timaadeen aad iyo aad ayaanu si kaliya laaba marka hore idinku mahad celinaynaa intiina gadaal ka timid intiina hore u timid dhamaantiina waa wada mahadsantihiin laakiin waxaan isleeyahay cadaalad bay u yaqaanaysaa inaan si gaar ugu wada mahad celino dadkii xilli hore yimid aad baad u mahadsantihiin dulqaadkaad muujiseen maadaama aynu wax maslaxadeena ka wada hadlayno waqtigaas iyo ka badanna way naga istaahishaa inaynu u horno mudanayaal iyo marwooyin iyo maqaawirta sharafta leh ee barnaamijkan ka wada soo qayb galay mar kale waad ku mahadsantihiin ajiibitaanka ama ka jawaabidda caasimada la idin sameeyay inaad barnaamijkan danta noogu wada jirtaad ka soo qayb gashaan sidaad la socotaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed statistics kasta ama tirakoob kasta oo la sameeyo ay ka maqraati kacayso in boqolkiiba 75 ay mujtamaca Soomaaliyeed da'doodu ka yar tahay 30 jir ama da'da 30ka waa boqolkiiba 75 mujtamac ay shacabkiisu ka yar yihiin da'da 30 jirka waxaan dareemi karaa bulsho kastana waxa uu ah udub dhexaad lagu cabiraa ama miqyaaska u ah cabiraada inay bulshadaas ay tahay bulsho fashilantay ama bulsho guuleysatay waa dhalinyaradeeda marka dhalinyaradii Soomaaliyeed oo mujtamaceena intaas ka ah hadda la socda markii la leeyahay 30 wali da'dii dhalinyarada waxba ka dhiman oo da'da dhalinyaranimadu 40 ay ku dhamaataa sida ay u badinayaan dadka arrimahan ka faalooda 40 jir ayuu qofku dhalinyaranimada kaga baxaa inta badan marka iyadoo wali dhalinyaranimadii dhamaanin oo 30 lagu joojiyay bay haddana mujtamaci waxay ka noqdeen 75 mujtamac kastana muraayada laga eego inuu guuleysanayo iyo inuu burburayo iyo inuu hormarayo waa dhalinyaradiisa marka waxaynu caawa isugu wada nimidinayno qaybta muhiimka ee bulshadeena kamid ah ka wada tashano meesha ay u socdaan iyo meesha ay maanta joogaan kaliya inaynu caawa wada baroor diiqno isugu imaan mayno oo indhahano waa la baay waa la hoogay dhalinyarada Soomaaliyeed way baabeen waan dareensanahay inay jiraan boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan la sheegin oo nolosha horumar ka sameeyay qurbaha yimid waxbarasho ka bilaabay waalidkood iyo naftoodii iyo mujtamacoodii ba anfacay waa la ogyahay inay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo la harjadaya inay nolosha qoysaskooda wax ka bedelaan laakiin maadaama aynu nahay bulsho u abuuran firfircooni iyo in boogta xanuunsata maadaama la yiri hal liin ah hadii liima badan lagu daro liinta quruntay liimaha badan way qurminaysaa marka in la iska dhex saaro ama la wacyi geliyo oo inuu dadkeena gacanta soo qabanno halaabay ee xumaaday in iyagina dhibaato isku haya bulshadiina dhibaato ku hayo mujtamacii Soomaaliyeedna magaca xumada u soo jiidaya in laga wada tashado waa arrin muhiim ah wada aragnaa marka intana Soomaaliya inay caawa arrinta wada garatay waa Ilaahay mahadiis oo inuu mowduucaas ka wada hadlayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo tiradaas kul ah bulshada Soomaaliyeed wadamo badan Sweden meelaha wali aan aad ka looga qaliin bay kamid tahay laakiin sanadahan ay dilalku ku bilowdaan inta hore xabsiyo iyo waxa laga hadlay rabshado laakiin aniga gobolka aan ka imid wadanka ka imid gaar ahaan gobolkan deganahay Alberta ee wadanka Canada gobolka Alberta kaliya waxa 7 sano ee ugu dambeysay la dilay 30 waxa isdilay lama dilin waxa isdilay afwan waxa isdilay 37 dhalinyaro Soomaaliyeed balasi 7 years magaalada Edmonton Calgary Fort Mac adigu magaalooyin gobolka Alberta la isku yiraahdo kaliya inta ku dhimatay sanadkan kaliya waxay marayaan 14 Canada guud ahaan bay marayaan marka ma ahan mushkiladan mushkilad ku kooban Sweden laakiin waa mushkilad shacabka Soomaaliyeed qurbaha ku qaxay aad u saameysay dadkii markii waalidiintu ay dhalinyaradii Soomaaliyeed la soo qaxeen ama la yimaadeen waxay la kulmeen language barrier waxay la kulmeen cultural waxa yaani luqad ka duwan dhaqan ka duwan waxay la kulmeen diin ka duwan mujtamac ka duwan color ka duwan marka dad badan bay ku adkaatay inay la qabsadaan qaar badan oo kamid ah si xun ayay uga faa'iideysteen fursadihii iyo noloshii halkii laga rabay inay u abaalgudaan waalidiintoodii kala soo cararay dagaalada sokeeye
mashkiladii iyo dhibkii wadankeena ka jiray ka soo badbaadiyay meeshii la rabay in ay ku gacansiyaan dhibaato ayay u soo horseedeen hooyooyin badan baa arrintan daraadeed la baroortay waalidiin badan baa dhibaato iyo arrin caafimaad daraadeed u xanuunsaday marka mashkiladaas aan caawa ka hadlaynaa waad ka wada dheregsantihiin midna waa tan ku saabsan marka Soomaalida dhexdeeda wadamada galbeedka gaar ahaan Sweden gaar ahaan magaaladan caawada joogtaan maadaama dadka meesha degan ay u badan yihiin reer Gothenburg ama Göteborg in laga wada hadlo mashkilada halkan ka taagan xalku muxuu yahay waalidiinta doorka laga rabo muxuu yahay dhalinyarada maxaa laga rabaa mowduucaas laga wada hadlayaa marka mashkilada labaadna waa tan extreme violence-ga la xiriirta gaar ahaan dagaalada dibadaha loo aadayo ama wadamada shisheeye oo diinta laga been abuuranayo iyo in ilmaha yani brainwash lagu sameeyo ama maskaxdoodii lagu akhrinayo waxyaabo aan khaldan oo diinteeni turjubaad khaldan laga bixinayo iyadoo intooda badan loo marayo social media ama YouTube ha ahaato wax badan baa lagu cambaareeyay masaajidda ama culimada iyaga shaqaalaysiya iyaga dira iyaga baraarujiya laakiin meelaha ugu badan ee final waxa la soo ogaaday dhalinyarada laga shaqaalaysiyo inay tahay social media oo ugu horeyso Twitter-ka iyo YouTube-ka iyo waxyaabaha la halmaala marka arrimahaasna dad ku xeel dheer ayaa caawa doodaha laga hadli doona aad baad u mahadsantihiin